لله وإنا إليه راجعون. الله أن حريستو عبد الرشيد راحي oo ahaa fanaan ayaa ku geeriyooday magaalada Edmonton gobolka Alberta dalka Canada. allaha u naxariistee waxaa axadii shalay agoosto 22 lagu aasay qowraha muslimiinta Edmonton. ilaahay samiri iimaan ha ka siiyo ehelkiisa, asxaabtiisa iyo Soomaali oo idil. isagana ilaahay qabriga ha u waasiciyo, marti la jecel yahay allaha ka dhigo, kitaabkiisa midig allaha ka siiyo. آمين إلهي وآمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أمد الصوماليات وحان وقتاسيينيا أنيقو أحمد علي مروح. أحنا يعني Social Injustice and Education Equality Director. قيري كتمت يعني عبد الرشيد راحي وكمدها كوميونيتيغا. أحنا يعني نين عانة وصومالي ذو وذا تقانو وفنانة يعني كنا ترسنا يعني إن لقنك يو محل هذا يعني فنك كرلوق هذا الله نحرسته قبري الله كقبوجيو وحن لنا أمد الصومالي ثمري إيمان الله يدكسيو إستغنا وحن برينا إلهي قادر كاها وحيد كاها خالق الكون كاها إنه قبري كقبوجيو جنة الفردوس إلهي وقبرينا إلهي وحن لنا هاي إله قبري كقبوجي إله وقبشاري جنة الفردوس إله أنتي إهلكاه إهلكيسة قرابة صومالي وين صمري إيمان الله كسي. والسلام عليكم ورحمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan ku sugannahay Edmonton Islamic Cemetery oo ah qowraha islaamka lagu duugo magaalada Edmonton gobolka Alberta dalka Canada. waxaan ka soo qayb galnay duugtii Allah u naxariistay Cabdirashiid Raaxaye oo ku dhintay magaalada Edmonton maanta oo ay tahay Agoosto 2022. waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto, ilaahay qabriga ha u waasiciyo, ilaahay jannatul firdaws ka waraabiyo, ilaahay ehelkiisa iyo Soomaaliya oo dhan sabir iimaan Allah ka siiyo. insha Allah khayr ayaan u rajeeynaa diilahaydo. roob da'aya awgiis nooma suurtagelin in aan la qaybsanno tacsida dadkii ka soo qayb galay aaska. Cabdinaasir Faarax Ciise, Runsheeg Media.